بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مدحضة الدولة وحان كو كدقينا مدحوينها حسن الشيخ رئيس وزارها قدوميها برلمانكا قدوميها قول كبنادري حد الله صوم مقعاوي مدالي وحان إدين شيغينا إن دقمة وابري أي بنام محان وقد الله إن إدين شيغان لبعتنا إخبار degmada waa bari waa degmada ugu facaweyn 17 degmo ahna dadkii nabadgelyada ka shaqeyn jiray dawladnimada jeclaa waxaan ku soo dul qaadanay in mar walba laga bedelo degmada gudoomiyaha la keenayna uusan ahayn mid u dhashay waxaa ku xigay gudoomiye xigeenadii kuwii arrimaha bulshada ugu dambeyn waxaa la soo galay gudoomiyaasha waaxyada war halkeen aadayna hadii ay balaayo dhacdo gudoomiyaha waaxidkan wacnaa weynoo yimaadiina ayagaana la soo dhisa dagyada hadii dad la kaseynay la keenayo sidee oo la dhaqmayna oo la shaqeynayna arintaas waa arin aan ka xumahay hadii aanu nahay odayaasha deegaanka degmada waa bari ee u soo dhibtooday u soo dhabar adeegay wadankan aan weli ka tagin dagaaladii soo kale dhacay ilaa hadda joogo waxaan dawladda u sheegaynaa qaasatan gobolka banaadir gudoomiyaha u sheegaynaa in aan la soo keeni karin qof aan degmadan u dhalan odayaashan ay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa xushmadooda oo ah in lala socodsiiyo wixii la sameeyo ma u dul qaadanayno ma yeelayno in qofka la korkeen la keeno in qofka la keeno oo gashiin ma gashiin inaan degmada u dhalan gudoomiyaha laga dhigo ma gashiin السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد maanta waa u jeedaan meeshaan dadkan soo baxeen degmada waa bari gaar ahaan waaxda horseed waxaa soo bixi dareen ay qabaan madax jaceylkooda xukun jaceylkooda iyo madaxdooda aad u jecel yihiin maadaama oo dareenkaas ay ku soo baxeen waxaan toos fikradeyda iyo fariinteeda ugu dirahayaa anoo soo gaabinaya maamulka gobolka banaadir gaar ahaan gudoomiyaha cusub hadda la soo bangacay duq magaalo degmada waa bari waa ogad madaale markaad ku xilka lagu dhiibo sida ay ku soo dhaweeyeen gacmo furaanta ay kugu soo dhaweeyeen diirnaantii dadkii baa meeshan taagan maantana cabashooda waxay tahay gudoomiyahooda waaxda gaar ahaan waaxda horseed yacni oo u dhashay deegaankan waa bari la yiraahdo waxay leeyihiin dhalinyaro wax baratay waxay leeyihiin aqoon-yahano waxay leeyihiin odayaal waxay leeyihiin marjac asaata iyadoo saas ay tahay wax laga su'aalo oo xil magacaabistooda iyo xilka qaadistooda dadka iyaga ay jecel madaxdooda cid wax looga su'aalo maba jiraanba degmada waa bari waxay ka tarjuntay madax gudoomiye magaalada duq magaalo Yuusuf Madaale dimuqraadiyadda iyo nidaamka wadanka ka jira taasoo ah waxaa mar walba loo keenaa cid aan deegaanka u dhalanin cid aan صلي على محمد asaate dal jaceylku صلي على محمد iyagoo taas ugu sameeyay dawlad jaceylka iyo nabadgelyo jaceylka maanta waxay maraysaa wadanka u jeeda dhibaatooyin fara badan waxyaabo badan dadka reer waa bari wadad walaale ah halku dhigoodna waxa waa bari walaalihiis beena waa iswataan inta meeshan taagan inta meeshan taagan hal qabiil ma ودد اسكو جيرو او ولاله انا غرانين قبيل iyo macniis iyo qurunkiis iyo wuxuu u yahay waxay u taagan yihiin maamul jaceyl nidaam jaceyl nin ala ninkii loo keen inay soo dhibeeyaan laakiin maanta waxa loogu soo galiyo guriyihii taasoo aan ula jeeday maamulka iyaga ay jeclaayeen dadka iyaga aan u dhalan mar uu dusho ugu keenaa gudoomiye waaxid cidii maanta yani gudoomiye kamaniye degmada ku xigayna kamaniye xogay kamaniye gudoomiye waaxid oo waaxda horseed ayaa maanta laga hunguriyayna bal nidaam xumadan iimaan daradan iyo waxaan meesha ka socda maba naqaanaba madaale gudoomiye duq magaalo sharafa ku lahayd waa bari maanta soo dhaweyntii hore maba taalaba way uurkay ka oonaayeen wayna cuqdadeysiin sida ugu raali gelileed dhibaatooyinka loo geysanaay iyo qofka iyaga ay jecel yihiin mar walba laga kaxeynaayo gudoomiye waxa dawladda la bedel gudoomiye waxa horseeda la bedel inteena loo wadaa marka xagee aadayna ma deegaanka ka guurayna ma soo joogayna ma deegaanka ka guurayna maya dawladda jeceelana cashuurtan bixina nidaamka nadaafadan bixina
maamulkiiaan taageersannahay taageeradii ilmihii yaraa hadda maanta wax noo soo barteen oo aan aaminay naga dhasheen hoggaanka inoo haayaan shaqada ay noo qabtaan aan ku qanacsan ayaa la diidan yahay warkay intaasaan ku soo gaaminaa fariintaan waxay khusaysaa soomaali weyn oo dhan ay khusaysaa bilaahi tawfiiq رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. marka hore waxaan salaamayaa madaxda dawladda ugu horeeya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha gobolka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waad u jeedaan banaanbaxaan aad iyo aad qiimaha iyo qaayada waxaan loo soo baxay wax kale ma aha waxaa waaye gudoomiyaha waaxda horseed gudoomiyaha waaxda horseed muxudiin shabiye ayaa ma aragtay waxaan maqalnay in xilkii laga qaaday taasna wax ma aragtay adii loo dulqaadan karaa ma aha deegaankan waxuu ahaa deegaan dadkiisa ay maamulaan waxaan kasoo bilaabaa waagii hore aniga aad arkaysay saciid maxamed waxaan ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada waabadi xagga arrimaha bulshada waxaa igu xigay gudoomiye waxaa ka ahaa muxudiin baari waxaa kaloo ku xigay oo makaraan marka awal waxaa ahaa jirtay degmada qof deegaanka u dhasha laga soo magacaabi jiray laakiin hadda waxay dhacday waxaa la keena qof kale ayaa keena deegaanka ugu dhalan ma yeeleyni mana yeeleyni haddii ilaah yidhaahna waxaan fariintan u dirayaa duqa magaalada haddii uu soo magacaawayo gudoomiye degmo wayna la tashtaa odayaasha deegaanka gudoomiye waxaan ku leeyahay haddii aad soo magacaabayso gudoomiye waxaa ka dambeeya kulley waxaa lamaya in isbeddel la samayn doono marka waxaan kaa rajaynaa insha allahu taala haddii ilaah yidhaha haddii gudoomiye lasoo magacaawayo in odayaasha deegaanka la tashataa ninka ay soo magacaabayaan ayaga ay keensadaan maxaa jira haddii qof kale meesha la keeno deegaanka waa ka shaqaystaa ma muu shaqeeyo markay deegaanka ma degsan hadday wax ka dhacaan haddii wax kale kama ogo intuu yimaado ka shaqaystaa waana iska baxaa macquulna maa taas waxaan rajaynayaa haddii ilaah yidhaha haddii gudoomiye degmo lasoo magacaawayo in odayaasha deegaanka la tashtaan ayaga u keenayo qofkay rabaan oo deegaan ah wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هوري بعد السلام waxaan baa ku dirayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maamulka guud ahaan dawladda aan hadalka aan ku sii dheeraanaynin waxa macnaha lagu kalifay inaan banaanka soo istaago maanta marka hore markaa maqashid degmadaasi adli baa ka jiro waxa adligaas sameeyay shacabka ayaa sameeyay shacabka waxay hoos tagaan maamulayeen Soomaa okay anigu ummaddu qaadin karo gurigeyga nin aan aqoonin inuu dhaho ku maamulaya marka waxaan aragnaa hadda ninka hadda maanta mas'uuliyadda noo hayo shabiye waa nin waabiri ku dhashacaan ah asigoo bil hooshaan marka dhan loo fiirin uu ku haysaba dhaxalkooda marxuum buu ilmihiisa ku biilaa kursiga uu fadhiyo macquul ma in loo quuri waayo Soomaa okay marka hadda hadalka soo gaabay nin aan ka seenin guriga dhijisgoosoy waa xagee waabiri uu maamulaa suurtagal ma niman garanayna sargidiisu waa xagee waabiri maamulaa marka waxaan ku soo koobayaa hadalka aan ku sii dheeraanaynin oo qiirada inay isii qaada aan diidana wax badan baa nagu duugan laakiin waxaan jecelahay in inta nagu duugan lagu sii haayo haddii ma laga furo war kala imaan doono laakiin waxaan aaminsanahay shalay muxudiin maamulku laha maantana asigaa iskale haddii ay jirto cadaalad iyo sinaan haddii si cadaalad iyo sinaan ay jirina macnaa waqtigaa sheegi doono laakiin waxaan farayaa gobolka Banaadir arrintaa inay ka sii fiirsadaan mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عوشة عن كجينا قومية هاي عن جعلنا هاي وواحدة قرصت ما أنتم أنا كو أجين قركان لبوكين بدل وهبينك حالتك تو يلينا ما هن أنا كحاكم حاكم مني دولنا هاي ده أنك أقولنا لنا ويفانتنا أمولا وحنا نديرها فرتين تاسي مدالي يوسف ألم كوهايا شاكرس وإنا شاكرس نقبل شيء قفكم مركي نبدله وإنا قف كل شيء ما هن قف أنا قرب كيس أنا كوي كسرنا لو كانوا ما قف أنا كسرنا لو كانوا وأجيني وهذنك حريتك ويفانتنا أمولا حدنا وحنا ربنا أنا كنين كاين ما ننكل مربني أنا كوهان ربنا شوية أول شوية ما
Good.